dhagax dhigidda iyo bilaabashada dhismaha jidka Xamar iyo Afgooye iyo jidka Xamar iyo Jowhar. waxaan mahad u celinaynaa dawladda Qatar madaxdeeda iyo dadka nooga yimid oo iyagu runtii na garab istaagay kuna bixin doona adduun lacag ah oo jidadkaas lagu dhisi doono. waxaan u mahad celinaynaa dawladda Turkiga oo iyaguna ah dawladdii qandaraaska ku guuleysatay oon rajeynayno in jidkaasi uu noqon doono jid la mid ah jidadka dunida. waxaan u hambaleynayaa labada madaxweyne maadaama maanta ay maalin cusub u tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo shacabka dawlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo la bilaabay in laga fuliyo mashruucyadii ugu waaweynaa sidii dalkeena u bilaabay dibadhiska. maanta waa maalin iftiin cusub u ah ganacsatada iyo beeraleyda ka yimaada labada shabeelle oo ay u dhib yaraan doonto mustaqbalka inay ganacsadaan. maanta waa maalin dhib yar oo u dhib yaraan doonto mustaqbalka dadka Soomaaliyeed oo meelahaas ka jooga. maanta waa maalin iftiin u muujinaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah shaqadii ay soo bilowday xukuumadda 2 sano ka hor ayaa mira dhashay. 2 sano kadibna waxaa la arki doonaa haddii Ilaahay yiraahdo mashruucyadan u dhamaaday. shaqada maanta aan hayno 2 sano ka hor waxay u muuqatay inaanan ahayn macquul. maanta waxaa idin muuqda iftiinkaas aan hore idinkugu sheegnay. waxaan aaminsanahay marka in haddii shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda isgarab istaagaan sida waayahanba dhaqanku ahayd la gaari doono horumar intaan ka sii weyn. ugu dambeyntii waxaan leeyahay labada madaxweyne iyo dhammaan dawlad goboleedka iyo shacabka Soomaaliyeed ee labada gobol ka soo jeeday ee gobolka Banaadir iyo dhammaan ciidamada iyo cid walba inay garab istaagaan shirkadaha dhisaya jidadkaas sida ugu dhaqsiyaha badanna shaqadaas waa loo bilaabi doonaa waxayna noqon doontaa shaqo miro dhasha.